السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كيغا مركلا سو دوادا آدي آدا ومهسنتين داوشدا ميل كستو جوجتان iyo waliba si kasto aad daawanaysaan jimco wanaagsan waa jimco 20ka bisha koobaad sanadka 2023 muuqaalkii aan shalay soo galiyay oo uga hadlayay sponsorka in dadku ay dadkooda sponsor ay u sameyn karaan oo wasiirka arrimaha dibadda uu shalay ku dhawaaqay su'aalo fara badan ayaa laga soo weydiiyay teleefankayga iyo baraha bulshada shalay markii muuqaalkii aan soo galiyay ilaa iyo hadda aan idin hadlayo dadku baraha bulshada iyo teleefankayga si aan kala joogsi lahayn ay ii soo waciyeen heer waxaan gaaray mararka qaar internetka inaan iska xiro hadda oo idin hadlayo internetka ayaan iska xiray marka dadka soo wacayay waxay isugu jireen dad buufisayo oo inta badan Afrika iyo meelo kala duwan jooga iyo dad Mareykanka jooga oo iyagu daalay oo doonaya dadkaas caboon inay bal Mareykanka keenaan oo yiraahdaan bal ruwaagi waa kanaaye dhagihiisa iga qabto inta Afrika aad yiraahdaan bal markiina waa ina soo biila wadaay marka dadka inta badan su'aalaha ay soo weydiinayeen ayaan rabaa bal inaan ka jawaabo iyo sidoo kale mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo isagu shalay markii wasiirka arrimaha dibadda uu shirka jaraa'id kadib qabtay oo hadlay su'aalo la weydiiyay mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo su'aalihii uu ka jawaabay waxyaabo aan kala soo baxay waxyaabaha la weydiinayay ay kamid ahaayeen horta anigu immigrationka uma shaqeeyo lawyerna ma ihi qof wariye ayaan ahay waxyaabaha aan arko oo saxda ah oo dawladda ka soo baxa ayaan idin la wadaagaa dadka qaar waxay maleeyaan inaan lawyer ahay oo sharciga aan bartay ama aan dawladda la shaqeeyo maya anigu qof wariye oo iska madax bannaan ahay marka sidaasi ayaan rabaa inaan dadweynaha la socodsiiyo haddaba marka dadku siyaabo kala duwan ayay u qaateen hadalkaygii iyo barnaamijkan sponsorshipka barnaamijkan waa barnaamij bilow ah shalay ayaa lagu dhawaaqay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku dhawaaqday dhowr waji oo kala duwan ayuuna yeelan doonaa lacagtii aan ka dhawaajiyay oo $2275 ahayd siday u shaqeynaysaa dawladdu qofkan wax ma ka caawinaysaa mise qofka keenaya ayaa caawinaya qofkusa goorma ayuu shakhsiyan isagu dadkiisa qaxootiga ku jira oo u dacwoon karaa barnaamijkan qaybtiisa koobaad uu quseynaya waxyaabahaas oo idil ayaan rabaa inaan idin la wadaago horta tan ugu horeysa oo dadku inta badan ay soo weydiinayeen shuruudda koobaad waxa ay tahay horta qofku inuu qaxooti yahay oo kaar qaxooti haysto hadda waliba dadka muhiimadda koobaad la siin doono waxay yihiin dadka muddada qaxootiga ku jiray oo UN-ku ay soo gudbiyeen isla markaana ay u soo gudbiyeen barnaamijka Mareykanka ee US Refugee Admission Program for Settlement dadka loo soo gudbiyay dadkaasi ayaa muhiimadda koobaad la siin doona ma ahan qof hadda intuu yimid xira qaxooti ama kaar qaxooti qaatay oo cusub ma ahan muhiimadda koobaad dadka la siin doono waa dadkaasi laakiin goorma ayaa la bilaabayaa dadkan private citizenska iyo waliba dadka green card holderska ay dadka baasaboorka haysto in ay dadkooda ay u dacwoon karaan ka hor intaanan gelin horta barnaamijkan 6 bilood ugu horeyso oo hadda laga gaarayo bartamaha sanadkan ilaa iyo bisha 6 dawladdu waxay diiradda saari doontaa dadka already qaxootiga ku jira oo la ogolaaday oo la soo qaadayo in la soo qaada bas ay u dhiman tahay oo waxyaabahoodii oo idil ay u dhamaadeen meel kasta caalamka ka joogaan dadkaasi ayaa 6 bilood oo u horeysa sanadkan muhiimadda la saaraya marka dawladdu waxay sheegtay 10,000 oo dadka Mareykanka ama qofku baasaboor haysto ama green card haysto in ay doonayaan 6 bilood oo u horeyso 10,000 oo dadka Mareykanka oo kafaala qaada 5,000 oo qaxooti ah waa sanadkan u horeeya 6 bilood oo u horeysa dadkaasi ayaa la doonayaa marka dadkaasi waa dadka Mareykanka marka waxay leeyihiin ayagu qofkii la rabo ayaa loo keeni karaa haddii adigu Soomaali tahay oo tiraado diyaar ayaan u ahay qof qaxootiya oo meel kasta oo caalamka ka yimaado waxaan diyaar u ahay inaan sponsor gareeyo waa lagu keenaya ama muslim ahaado ama gaal ahaado ama yahuud ahaado adigay ku taala waa haddii aad ogolaato ma ahan in lagu qasbayo marka barnaamijka website-ka aan shalay soo galiyay oo ah www.welcomecorps.org qofku informationkiisa ayuu gelinayaa ma ahan hadda marka adigu inaad geliso in isla markiiba qofkaadii lagu soo wacayo lagu leeyahay qofkaadii oo meel hebel jooga lagu keenaya 6 bilood oo u horeyso waxay tahay hadii aad geliso macnaheedu waxay tahay waxa diyaar u tahay qof inaad sponsor gareyso aan waliba dadkaada aan ahayn hadii laga yaabo hadii aad magacaada saddexaan magacaada koobaad kan labaad adresskaada gobolka aad joogtid telefonkaada emailkaada aad gelisid ka bacdi hore automatically email kuugu soo dhacayo oo lagu leeyahay waa lagu la soo xiriiraya markaas waa lagu weydiinaa waxa lagu leeyahay ma diyaar baa u tahay in qof qaxooti aad soo dhaweysid maya marka
adigu waxaad isdhahaysay qofkaadi ayaa lagu keenaya laakiin ma ahan qof kale ayaa lagugu maaj karaynaya qof kale ayaa lagu keeni karaa waa tahay marka dawladdu shantaasi kun oo qaxooti ah oo already la approve garay oo dad la soo qaadaya processkooda dhamaaday meel kasta caalamka ka yimaadaan Soomaaliya hadayoosan ahaanin waa dadkaasi dadka 60 bilood oo u horeysa dawladdu ay barnaamijkan ku bilaabayso marka barnaamijku waa ballaaran doona marka waxa loo gudbi doonaa in qofka uu yiraahdo qofkayga oo qaxootiya oo meel hebel joogo ayaan rabaa in aan anigu u dacwoodo oo aan keeno barnaamijku halkaasi ayuu gaari doonaa marka processkaasi waa process dib ma 60 bilood ay markii bisha lixaad kadib ayuu barnaamijkaasi bilaaban doonaa mase sanadku markuu dhamaado oo bilaaban doonaa wali dawladda ayaa laga sugaya marka waxay u badan tahay laakiin bisha lixaad wixii ka dambeeyo in processku uu saas ku bilaaban doono marka processku dhowr waji ayuu yeelan doonaa exactly waa midka Canada ka jira ee group 5 ay dawladdu si toos ah u soo koobiyay maadaama barnaamijkaasi barnaamij successful oo guuleystay uu yahay sida ay dawladdu sheegtana wasaaradda arrimaha guduhu waxa ay sanadkii labadii sano ee la soo dhaafay qabatay barnaamijyo guuleystay waxa kamid ah barnaamijkii Welcome Allies oo dadka reer Afghanistan laga soo daabulay lagu soo dhaweynay oo dadka Mareykanka ay sponsor u sameeyeen barnaamij guuleystay ayuu noqday Welcome Allies waxa ku xigay barnaamijkii Uniting for Ukraine oo 200,000 oo qof qaxooti wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale sanadkii la soo dhaafay markii dagaalka Ruushku ay ku qaadeen Ukraine la soo dhaweeyay waxa kamid ah barnaamijka Brawl Program oo 2 sano dadka Mareykanka fursad loo siiyay dadka Venezuela, Haiti, Nicaragua iyo Cuba ka imaanaya in dadkaasi 2 sano muddo Brawl Program ay wadanka ku joogaan oo dadku sponsor gareeyay marka saddexdaas barnaamij wasaaradda amniga gudaha ayaa qabatay barnaamijyo successful oo guuleystay ayuu noqdeen halkaas iyadoo dawladdu ka amba qaadaysa marka ayay sameysay barnaamijkan Welcome Corps oo hadda dawladdu maalimadii shalahayd ay ku dhawaaqday lacagta $2,275 ah marka qofka kafaala qaado hadii ba dadkaada ay noqoto lagu ogolaado markaas dawladdu ay bilowdo in dadkaada aad keensan karto aad shay karto leeda qofkayga oo hebel ah oo xera hebel jooga ama meel hebel jooga oo kaarkaasi qaxooti haysta ayaan doonaya marka lagu ogolaado 3 bilood oo u horeysa ayaa lacagtaasi $2,275 cash qofka looma siinayo waxa guri ayaa loogu qabanaya oo depositka ayaa looga sii bixinaya guriga qofkaasi aad u qabanayso sidoo kale waxa lagu sameynaya waxyaabaha kale oo lagu sameynaya waxa kamid ah dharka xilliga qaboobaha la gashtin qofkaasi loogu iibiyo gurigaas in alaab loogu dhigo furniture loogu dhigo $2,275 sidaas ayay noqon doontaa lacag qofka cash loo siinaya ma ah intaas kadib 3 bilood kadib marka dawladda federaalka ayaa qofkaasi la wareegayso oo muddo 9 bilood oo kale qofkaasi gacanta ku haysondo barnaamijyadii federaalka sida caafimaadkii kaarkii cuntada iyo waxaas ayaa la siin doonaa faahfaahintan marka waxa bixiyay mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda oo wariyaasha su'aalo weydiiyeen kadib markii wasiirka arrimaha dibadda uu shalay arintaasi ku dhawaaqay sidoo kale qofka marka private oo citizenka oo qofkan sponsor gareey waxa looga baahan yahay in haduu carruur wato iskuulkiisa kala diiwaan geliyo hadii farmashiyaha uu tuso meesha loo maro dukaanka cuntada uu geeyo baska shaqada uu aadayo meesha uu geeyo marka 9 bilood kadib qofku waxa la doonayaa in uu shaqo raasido cagiisa isugu taago hadii xilligaas ka hor qofku uu self efficient gaaro isku filnaado intii 12 bilood ayaa loogu talagalay 3 bilood dadka sponsor gareey ayaa gacanta ku hayn doona 3 bilood oo u horeysa 3 bilood kadib 9 bilood oo kale dawladda ayaa la wareegaysa oo caafimaadkiisa iyo wixiisa la wareegi doonta 12 bilood ayaa qofka gacanta lagu haynaya 12 bilood ka hor qofku haduu self efficient noqdo isagu isku filnaado shaqo helo oo baabuur barto oo baabuur qaato macnaheedu waxay tahay qofkaasi qof isku filnaado waaye xitaa dawladdu caawinaad ay siinayso way ka jaranaysaa arintaasi marka waa faahfaahin aan gadaal ka ogaaday oo qof wasaaradda arrimaha dibadda mas'uul ka tirsan oo faahfaahintaasi bixiyay sidoo kale waxa kamid ah marka sanadkan 2023 bartamihiisa marka la gaaro marka ayay u badan tahay in qofku uu dhihi karo war anigu hebel ahay passport aan haystaa ama green card aan haystaa deganaansho rasmi waxaan doonayaa qofkayga oo hebel oo meel hebel joogo qaxooti hebel joogo aan doonayaa marka inaan dacwado markaas qofkaasi waa halkaas ayuu ka amba qaadaya oo sidaas qofkiisi loogu keenaya sidoo kale dawladdu waxay sheegtay 6 urur inay kala shaqeyn doonaan dadka private sponsorska in dadkaasi la keeno dawladda ayaa 6daasi urur fangarayn doonta waxayna ka taageeri doonaan dad khubro ah oo dadkan dib u dejinta yaqaana oo ka caawin doona dadkan private sponsorska oo dadkooda ay kafaala qaadaya inay tababaraan sidoo kale in dadka
aad kafaala qaadayso marka aad kafaala qaadayso sidoo kale qorshahada soo bandhigto tiraado halkaas ayaan guri uga helay iskuul hebel ayaan doonaya carruurta inaan kala diiwaan geli marka qorshahada waa inaad lixdaasi urur hor dhigtaa ay approve gareeyaan adiga qofka sponsor gareynayso already UN kaaba fatin ku soo sameeyay Mareykanku way soo baareen background check lagu sameeyay adigana waa lagu baaraya baaritaan lagu sameeynaya background check lagu sameeynaya income kaada la ogaanaya waxyaabahaas oo idil marka la ogaado oo lagu approve gareey ayaa lagu leeyahay qofkaadi marka waa kaasa waa lagu keenaya kadibna waa lagu wareejinaya laakiin ma ahan in inta lagu wareejiyo faraha laga qaadayo waa lagu la soconaya waxa la ogaanaya qofkaasi sida ay inuu la qabsanayo wadanka sida aad u caawinayso markasta checkina lagu sameeynaya oo waa lagu ogaanaya review ayaa lagu sameeynaya sidoo kale guriga aad dejinayso waa la soo arkaya sida caadiga ah oo jirtay qofku markuu yimaado hay'adda soo dhaweynayso qofkiisa ehelkiisa la soo xiriiri jiray hadii qofkaasi guri oo u helay guriga la jeegareynaya alaabta la dhigay waxa soo dhan la ogaanaya waa la soconaya qofka ma ahan waa lagu keenay faraha laga qaadaya ma ahan waa lagu la soconaya teeda kale dad wadanka wax ku soo kordhinaya la rabo waxaan ognahay wadanka shalay deyntiisa inay gaartay meeshii ugu dambeysay oo wadanku wax deyn uu qaadan karin 31.4 trillion ma ahan boqolaal ma ahan kumanaan ma ahan malaayiin ma ahan bilyan waa trillion waxyaabaha la isku haysta waxa kamid ah Republicaanku hadda dimuqraadiyiinta ay ku haystaan lacagta ay dawladdu qarash gareynaysa hal la yareeyo si aan inaguna u ogolaano in dawladdu lacag kale ay deysan karto marka dawladdu waxay doonaysaa qarashkii ka bixi lahaa inay yareyso marka waa sababta marka dadkan private sponsorska loogu ogolaanayo dadkooda inay sponsor gareeyaan sidoo kale sida aan ku sheegay marka dadkaasi waa la soconaya ma ahan qofkii inta lagu keenay in faraha laga qaadayo iskuulkii waxyaabihii qofkii sidoo ula qabsanayo wadankii in qofkan soo dhaweeyay sidoo qofkan u taageeray waxyaabahaasi oo idil waa waxyaabo la soconayo marka dawladdu wasaaradda arrimaha dibadda waxay tiri waxaan doonaynaa in aan gaarno hiigsigii madaxweynaha ama targetkii madaxweynaha bartilmaameedkiisa oo ahaa in sanad kasta 125,000 oo qaxooti Mareykanku oo dib u dejin oo u sameeyo marka waxayna doonayaan sidoo kale inay dejiyaan fatinka ama baaritaanka lagu sameeyo dadka qaxootiga xariyaha jooga si ay u fududaato dadkaasi in sida ugu dhaqsiyaha badan ay wadanka ku yimaadaan marka waa arinta waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan doonayay marka inaan idin la wadaago dadku su'aalo fara badan ay arintaasi ay iga soo weydiinayeen marka barnaamijkan waa barnaamijka Canada ka jira oo kale barnaamijka Canada ka jira marka barnaamij waxa la yiraahdo sponsorship agreement holders dad la yiraahdo jiro dad waxa jiro marka ururo ay iyagu dawladda agreementigaas ka haysto oo qofka intuu u tago oo halkaas application ka buuxiyo applicationkaas immigrationka loo gudbiyo kadib la yiraahdo qofkaas hebel ah oo dadkiisu meel hebel joogaan waxa uu doonayaa dadkiisaas inuu keensado kadib dawladdu sidaas ilaa iyo 130 organization ayaa ka jira Canada oo dadkaasi haysta SHAH oo sponsorship agreement holders ka la yiraahdo marka dadkaasi waxa ay la shaqeeyaan sidoo kale hogaamiyaasha diinaha community-ga meelaha soo idil kaniisadaha dadkaas waxa soo idil ay la shaqeeyaan marka qaabkaasi ay dawladdu ay ka soo koobiyay midka Canada ka jira oo kale sida darteed marka ay ururadaasi approve gareeyaan oo immigrationka ay u diraan immigrationka sidoo kale markaasi qofka ayuu la soo xiriiraya waxaan leeyahay qofkaadii oo hebel oo meel hebel joogo waa keensan kartaa marka waa barnaamijka Canada oo ka jira oo kale ilaa hadda dawladdu ma isdahin shakhsi ayaa u dacwoon karo shakhsi kale ama shakhsiyaad kale laakiin hadda waa group 5 sida hadda la ogolaaday waa 5 qof oo isku tagay oo lacagtaasi ururiyay kadibna dadkaasi u dacwoon karo waxayna bilaabanaysaa bisha 6aad wixii ka dambeeyay sidaan sheegay wajiga koobaad waa dad ilaa hadda already la approve gareey oo la doonayo in la soo qaado oo 10,000 oo dadka Mareykanka ay doonayaan inay kafaala qaadaan 5,000 ee u horeysa ee dadkaasi la approve gareey oo already diyaar ah oo in la soo qaado marka barnaamijku waa si balaaran doona sida aan sheegay waxa uu gaari doona in qofka Mareykanka oo halkan jooga oo dhalashada haysta ama green card haysta uu yiraahdo war qofkayga oo qaxootiga jooga meel hebel jooga wadan hebel jooga ayaan doonayaa in aan keeno halkaasi ay gaari doontaa laakiin hadda wali ma gaarin oo wajigii koobaad ayaa lagu jira dad fara badan waxay soo weydiinayeen aniga oo dawladdu ay caawiso oo guri dawladda ku jira qof ma keeni kara adiga ayaaba lagu caawiyaa dawladdu ku caawinaysaa sidee qof kale adigu ku caawinaysaa marka adigaaba dambi isgelinaya Soomaa oo dhahayo war anigu caawinaadiina ma rabe waxyaabo kale ay qarsanaay hadda dadkayga raba inaan keensado marka adigaaba lagu caawiya marka qofku waa inuu yahay dadkan isku tagaya waa inay yihiin dad aysan dawladdu caawin oo shaqeysto oo income leh oo tax return xareeya oo meel loogu soo hagaagala income-kooda hadii la fiiriyo income u yahay isku filan ah laakiin aniga la caawiya waxaan doonayaa qof kale inaan caawiyo wax suura galaya maahan Soomaaliyeed marka aad iyo aad ugu mahadsantiin daawashada waxyaabaha kale ee soo kordhay waa idila soo wadaagi doona hadii aan la idmo laakiin
shuruudda koobaad waxay tahay qofku waa inuu qaxooti yahay oo kaar qaxooti haysta waliba muhiimadda koobaad barnaamijka wajiga labaad ee hadda aan idin sheegayo waxa la siin doonaa dadka qaxootiyada muddada ku jiray oo UN-ku ay dawladda Mareykanka u soo gudbiyeen oo sawir laga qaaday faral laga qaaday interview la mariyay wax kasta la mariyay oo vetting-kooda uu dhameystiray yahay caafimaad inta hore u maray xitaaba ka dhacay dadka muhiimadda koobaad la siin doono waa dadkaasi muuqaalku waa dheeraaday ma raba inaad ku sii badiyo laakiin waad daawataan in ka badan 4 milyan oo viewers ana haysta 3 sano ayaan YouTube kan wadaa 30 kun waa dhaafilaanahay marka inaan barnaamijyo soo duuba maaha marka inaan iska dhaafo waayo ilaa xitaa 50 kun waana gaarsiin laadeen subscribe-tiinu dadku way iska daawadaan subscribe ma saaraan marka naga daaya waa daalnay adinkiina dhiirigelintii kama hayno marka subscribe hala saaro bal 100 kuna waa geeda dheer bal 50 kana gaarsiiyo hadda 30 kun aan marayna 3 sano wadna marka sanad kasta 10 kun aan ugu soo biireysay in ka badan ku dhawaad 5 milyan oo viewers waan haysanaa marka arintaas suuragal ma aha meesha naga qaada wax muhiim ah idila wadaagna waa aragtay inta badan wax ka dadka Soomaalida qusaynayaan idila wadaaga marka barnaamijka hala share gareeyo bal 50 kun gaarsiiyo maalmahan soo socdo 100 kuwa geeda dheer waa la iska gaari doona aad iyo aad ugu mahadsantihiin meel kasto aad joogtaan iyo waliba si kasto aad daawaneysaan sidaas iyo nabadgelyo